Asalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada kanaalkayga short films. Maanta waxaan sharaxaynaa filim khiyaali lagu magacaabo Forced Respective. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa gabar da'yar oo lagu magacaabo Emily oo sawiraysa hareeraha wadada Boston. Isla markiiba waxay buug-gacmeedkeeda ku sawiraysaa sawir qof aan la garanayn. Markii la dhameeyo sawirkii, waxay ka daba tagtay ninkii jidka maray oo u dhiibtay sawirkii. Waxay hoos mareen meel dhismo oo beri ka soo dhacday oo ay xabad kaga dhacday ninkii. Gabadha markay furtay sawirkii, Emily aad ayay u naxday maadaama ay sax u saadaalisay dhimashada. Mid ka mid ah saraakiisha Lincoln ayaa wacay baaraha oo Livy u sheegay dhacdada. Waxay markii dambe ku amartay in uu soo ururiyo dhammaan ilaalada aagga si loo aqoonsado gabadha. Dhankeeda Livy waxay ku soo laabatay guriga oo ay ogaatay in aabbaha Jim uu ka warqabo kartida hibada leh oo uu qoyskiisa u wareejinayo dalka si uu sirta uga ilaaliyo dadweynaha. Maalintii xigtay, Lincoln wuxuu si guul leh u aqoonsaday gabadhii oo la socda dhaqdhaqaaqeeda, laakiinse uu weli ma garan karo halka ay ku nooshahay. Aan dib ugu soo noqon, Emily waxay fuushan tahay baska markii si lama filaan ah mar kale aragtay heshay oo ay sawirtay mid ka mid ah rakaabka, laakiin ninku si degdeg ah ayuu baska uga degay. Emily waxay isku dayday inay raacdo isaga iyada oo rajaynaysa inay u dhiibto sawirka digniin ahaan, laakiin ninku wuxuu ka lumay indhaheedii. Wakiiladu waxay ugu dambeyntii yimaadeen gurigii Emily. Waxay tuseen sawirkii, laakiin Jim iyo xubnihii kale qoysku been bay u sheegeen iyagoo ku andacoonaya inaanay garanayn iyada. Wax yar kadib markii wakiiladu ka baxeen dhismaha, waxay si lama filaan ah kula kulmeen Emily wadada, waxayna bilaabeen in ay weydiiyaan su'aalo la xiriira awoodda ay u leedahay inay saadaaliso dhimashada qof. Laakiin aabe xanaaqsan ayaa kasoo baxay dhismaha oo ku jiiday Emily iyaga. Jim wuxuu daa ka qaaday in ay la nool yihiin sidii reer guuraa si ay uga fogaadaan shirkadda la yiraahdo Massive Dynamics oo isku dayaysa inay afduubato oo ay baarato awooddeeda. Olivia waxay siisay Jim kaarkeeda ganacsi iyadoo u siinaysa inay caawiso shirkaddu marka ay u soo hanjabto. Intaa kadib, Olivia waxay ka hortimid agaasimihii fulinta ee Massive Dynamics oo magaciisu yahay Nina Sharp. Su'aalo ku saabsan weydiiyay Emily, waxay qiratay in shirkadoodu ay xiisay weyn u qabto iyada. Daqiiqado kadib, wakiilku waxa uu wacay Emily oo doonaysa inay fool la kulanto. Olivia waxay heshay Emily meel haro ah oo u dhow halkaas oo gabadha hibada leh ay ku tusinayso sawir gacmeed ay ka sawirtay baska mar hore. Sawir gacmeedku wuxuu sawirayaa arxan mideed dhismayaal burbur. Olivia waxay keentay gabadhii shaybaadhka halkaas oo Emily ku muujinayso awooddeeda waxay maskaxda ku hayso. Markay aragto qof u dhow oo dhimanaya, waa ay sawirtaa. Waxay had iyo jeer isku daydaa inay ka hortagto in shilku dhaco, laakiin aragtidu mar walba way rumowdaa. Waxa kale oo ka baqaysa inuu xasuuq dhaco. Wakiiladu waxay isla markiiba isku dayeen in ay aqoonsadaan ninka baska saaran, kaasoo noqday Alberto. Olivia sidoo kale waxay ku casuuntay Jim inuu yimaado shaybaadhka si loo helo aragti ballaaran oo ku saabsan dhacdada. Lincoln waxa uu soo jeediyay in Emily loo oggolaado inay dib u soo xasuusto. Maskaxdii Emily waxaa lagu soo celinayaa baskii. Waxa ay ka soo baxday baskii waxayna argagaxday markii ay la kulantay dad badan kuwaasoo isku dayay inay ka baxsadaan qarax. Nasiib darro, qaarkood waa dhinteen sida sawir gacmeedka lagu muujiyay. Markii ay dhex marayso, waxay heshay calaamad waxayna wargelinaysaa qof kasta oo shaybaadhka ku jira. Waxay sidoo kale aragtay meydka Alberto kaasoo haya qaraxa. Mid ka mid ah wiilasha ayaa gartay calaamadda oo ku wargelinaya Olivia in shilku ka dhici doono guriga maxkamadda. Intaa ka bacdi, Jim iyo Emily waxay ku soo noqonayaan guriga halkaas oo aabuhu ku arkay in isla gaadhigii madowga ahaa ee uu ku arkay gurigii hore uu sheegay, iyaga oo garanaya in Alberto uu qarxin doono dhismaha maxkamadda. Kooxda bambooyinka ayaa isla markiiba la hawlgeliyay. Dhanka kale, Alberto waxa uu joogaa guriga maxkamadda wuxuuna dalbanayaa inuu la kulmo xaakimka. Markii qof walba la daadgureeyay, kooxda bambooyinka ayaa ka helay bambooyin goobta baabuurka la dhigo. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku qaadan doontaa waqti dheer inay hubka ka dhigaan howlgab. Peter wuxuu helay fikrad inuu xannibo raadiyaha gaarka ah, kaas oo ka ilaalin doona qaraxyada inuu shaqeeyo. Waxaan ku noqon Alberto. Ugu dambeyntii, waxa uu la kulmay garsoore kaasoo ku xukumay Alberto kiiska carruur haynta una hayn karin carruurta. Wuxuu riixay qaraxyadii, laakiin ma qarxin. Daqiiqado yar kadib, FBIda oo ku jirta Olivia ayaa timid oo hareereeyay Alberto. Wuxuu daa ka qaaday inuu hayo bambooyinkeeda oo ku duuduubay jirkiisa, laakiin Olivia waxay maamushay inay dejiso isaga. Aakhirkii wuxuu ka noqday inuu isqarxiyo. Alberto waa la xidhay, qof kastaana wuu badbaaday. Markii guriga lagu soo noqday, Emily waa la waayay. Jim waxa uu u maleynayay in la afduubtay. Si kastaba ha ahaatee, wakiiladu waxay xaqiijiyeen in gaadhiga madow uu yahay kaliya nadiif. Olivia iyo Lincoln waxay gabadha ka heleen harada dhinaca halkaas oo Emily ku fadhiday kursi. Olivia waxay dareentay sawirka Emily agteeda yaalla oo ku tusinaya Emily oo aabaheed la fadhiya isla kursiga. Isla mar ahaantaa, Jim waa yimid oo fadhiistay kursigii. Aabuhu wuxuu isku duuduubay gabadhiisa iyada oo dhimanaysa stroke ka dhashay culayska badan ee dhaqdhaqaaqa maskaxdeeda.